السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا جنالك مركز السوداء واضح هذه هذا وما سنتهين muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago mudaharaadyadii xooganaa ee maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Minneapolis oo maanta qaybo kale wali ka socda inkastoo qaybo kamid ah gobolada Mareykankana ay gaareen sabtidii mudaharaad aad u balaaran ayaa dhacay xitaa xildhibaan Ilhaan Cumar iyo xildhibaano kale oo loo diiday in xitaa xarunta ICE ay dadka geeyaan markay soo qabtaan inta ay tageen loo diiday kadibna mudaharaadka ka soo qayb galay oo ka hadlay ciidamada ICE wili howlgaladii sidoodii ayay u wadaan wasiirka amniga gudahana shalay waxay warbaahinada Mareykanka u sheegtay in ciidamo kale oo dheeraad ah loo soo dirayo magaalada Minneapolis iyo waliba magaalada kale mataanaha lah ee St. Paul mudaharaadyada waxaa cadaalad loogu raadinayay gabadhii Renee Nicole Good oo arbacadii askariga Jonathan Ross oo ciidamada ICE ka tirsan uu ku dilay magaalada Minneapolis waxaana lagu dalbanayay ciidamada ICE gabi ahaanba gobolka Minnesota inay isaga baxaan hadaba Liban Hussein oo loo yaqaano Liban Show ayaa waxa uu kamid ahaa wariyaasha mudaharaadyada la socday isla markaana si toos ah oo live ah u soo gudbinayay mudaharaadyada Liban bal waxaad warbixin iga siisaa maadaama labadii maalmood oo la soo dhaafay ee weekend ahayd dadkuna inta badan shaqooyinka ay ka joogeen fursadna loo helay inay dadku isku soo baxaan oo mudaharaadaan mudaharaadyadu halkee inta badan ka dhacayeen maxayse dadku dalbanayeen mudaharaadyada intii ay wadeen aad baad u mahadsantahay cilmi waare maalintii sabtida ahayd gobolka Minnesota gabi ahaanba waxaa lagu baaqay inay dadku ay mudaharaadaan mudaharaadyadu runtii waxa ay ka dhacayeen goobo kala duwan goobahaasi sida xaafadaha kala duwan oo Bronzeville, St. Louis Park, Hopkins xaafado aad u fara badan oo mudaharaadyo ay ka dhacayeen aniga midka aan ka qayb galay kii ugu weynaa ayuu ahaa uguna socodka dheeraa laga soo bilaabo Bloomington iyo Chicago ayaa waxa ay isku soo baxeen kumanaan muwaadiniin oo runtii Mareykanka ah ayagoo boorarkoodana ay ku qornaayeen ICE ha ka baxdo Minneapolis waxay ka soo horjeedeen dilkii loo geystay gabadhii u codoleynaysay immigrant-iga oo magaceeda la yiraahdo Renee Good ay aad ka ugu xumaayeen lugtii lagu maray wadadaasi waa taqaanaa Bloomington ilaa Portland ayaa waxaa lug kale lagu sii tagay halka gabadha Renee lagu dilay isla markaasina dadku aad bay runtii shucuurtooda u kacsanayd ayagoo ku dhawaaqayay hadallo ama halku dhigyo ay lahaayeen ICE ha ka baxdo dhulka wadanka anaga iska leh anaga Amerikaana nahay ICE uma dulqaadan karno waxa kale oo rabnaa Renee inay maaragtay ay hesho dilkii loo geystay inay hesho xaqsoor ninka dilay booliiska in la soo qabto la xiro marka ereyadoodu sidaasay u badnaayeen goobtaasna waxaa runtii ka soo qayb galay Congress Ilhaan Cumar oo halka ayadu laftirkeed ay joogtay waxa kaloo joogay jaaliyad aad u fara badan oo Soomaali ah waxa kaloo indhahayga qabanayay oo la lugeynayay dadka cilmiyow inta aan mudaharaadka aan istaagaynin hawadana aad bay u qaboweyd qofka wajigiisa ma arkaysid qof ka saay malaha ilaa qofku kula hadla mooye qof walba oo qaboob xun baa jiray gabdho Soomaaliyeed oo waxaan arkayay gaari ay wataan oo gaariga alaabta lagu jiido yar oo termuusyo fara badan ugu jiraan ayaa waxay ii sheegeen termuusyadooda inay ugu jiraan shaah ayagoo sii socda ayay shaah sii qiibinayeen Soomaalidu laftirkeed marka banaanbixii ugu weynaa ayuu ahaa gobolka Minnesota shalay ka dhacay waa tahay Liban waa mahadsan tahay Soomaalida iyo doorka ku lahayd waan u soo laaban doonaa in ciidamada ICE wili waa la soo kordhinaya markii hore 2,000 ayaa lagu bilaabay 1,000 kale ayaa lagu soo daray hadda 3,000 ka badan ayaa Minnesota joogta wasiirka amniga gudahana shalay waxay sheegtay in ciidamo kale oo dheeraad ah ay u soo diri doonaan Minneapolis iyo St. Paul waa sidee marka cabsida jirta waxaan ognahay in meel kasta ay tagayaan oo dadkii dukaamadii goobihii gas stationada meelahoodii shaqada maqaayadihii meel kasta ay tagayaan xitaa dad la arkayo guryahooda laga soo bixinayo waa sidee cabsida jirta maadaama askar fara badan oo ICE hadda joogto kuwa kalena la soo wado sidee cabsida ka jirta gobolka Minnesota ay tahay run ahaantii waa saa sheegtay cabsida aad bay runtii u laba jibaarmaysaa jaaliyadda
gaar ahaan Soomaalida ku nool gobolka Minnesota cabsideeda aad bay laba jibaar u noqonaysaa sababtoo ah iskuuladii aan la aadi karin caruurtii aan iskuul loo diri karin ciidanka ICE haddii sidaas sheegtay ay ku soo darayaan 2,000 qof oo ciidan haddii la keeno ma aha mid jidadka ay dadka qabanayaan guryaha ayay gali doonaan sida wararka aan ku maqlay xaafad bay maaragtay ilbaabada u gali doonaan weliba waxa kaloon maqlay inay haddii aad leedahay hataa sharci ay kiis kale ay ku samayn doonaan oo aan jirin oo lagu qabto oo sharcigan laga qaado marka cabsida gobolka Minnesota gabi ahaanba lama qiyaasi karo iska badaa dadkii sharci la'aanta ahaa ee darbiyada ka soo booday warkooda dhaaf kuwii sharciga lahaaba ayaa mataqaanaa gacan ku gabasho ku jira cilmiyow arrintaas haddii wax ka weydiiyo Libano waxa jirtay isla arbacadii maalintii gabadhii Renee Nicole askariga ICE uu dilay iyagoo qof sida ay sheegeen ceyrsanaya iyo waxay tageen iskuulka sare ee Roosevelt oo ku yaala koonfurta Minneapolis halkaas oo ardadii iyo macallimiintii ay iskula dhaceen oo xitaa si kooban macallin kamid ah iskuulka ay u xireen waxaan ogeyn in Khamiistii iyo Jimcihii iskuulada la xiray public ah oo dawladdu ay leedahay hadda maanta waa Isniin iskuuladii dib ma loo furay waana sidee xaaladda iskuulkii Roosevelt oo ciidamada ICE ay tageen iskuuladii maanta dib waa loo furay laakiin iskuulka Roosevelt maanta ayagoo iskuulkii ardaydii ay yimaadeen ayay banaanbax samaynayeen wadada eriyada iskuulka u dhow iyo moolka buunda u dhow oo dadku ay maraan halkaas saxmada ah ayay mudaharaad ku samaynayeen ardaydii iyo weli macallimiintooda kuwa aan la kulmay ayaa waxay ii sheegeen Soomaali baa ku jirtay inay ka xun yihiin weerarkii ICE ku soo qaaday iyo dilkii loo geystay Renee marka ayadoo maanta ay tahay iskuuladii casharadeena aan joojinay anagoo imaanay boorsooyinkooda ay wateen ayagoo boorsooyinka dhabarka u saaran ayay mudaharaad wadooyinka ay ku samaynayaan Libano waxaan arkaynay muuqaalo kala duwan oo dad Soomaali ah oo ICE markii ay u timid su'aalaha ay weydiinayaan ay kamid tahay halkee ku dhalatay oo ay doonayaan inay ka ogaadaan qofkan ma meel ka baxsan Mareykanka uu ku dhashay ma Afrika uu ku dhashay ma Soomaaliya uu ku dhashay marka su'aalaha noocaasi oo kala iyo goormaad citizenka qaadatay sidee dadka Soomaalida ay u arkaan mase ku kala soon yihiin inay u sheegaan ciidamada ICE inay Soomaaliya ku dhasheen ama waqtigii Biden laga doonayo ay yiraahdaan xilligii Biden 4 sano joogan citizenka qaatay marka bal su'aalahaasi sidee dadka Soomaalida u arkaan oo ciidamada ICE ay weydiinayaan cilmi horta su'aalahaasi awal ma aysan jirin laakiin hadda ayay soo kordhiyeen waana su'aalaha dadku badanaa ay ku daadan doonaan haddii la isweydiiyo sababtoo ah dad baan xasuusanayn goorta ay qaateen muxuu ahaa dhalashada Mareykanka citizenka laga yaabo inay ku qoran tahay waddanka markaad soo gashay qaxooti ahaan aad ku soo gashay inaad xamar ku dhalatay for example inaad ku dhalatay Baydhabo inay ku qorantay laakiin aadan xasuusnayn baa dhici karta laakiin haddii lagugu qabto on the spot lagu yiraahdo xagee ku dhalatay xageed goormaad qaadatay runtii su'aalahaasi ma aysan jirin laakiin aad bay runtii jaaliyadda u saameyn doontaa haddii su'aalahaasi lagu badsho ama la weydiiyo yes qofka Mareykanku ku dhashay dabcan wuu dhihi karaa waxaan ku dhashay isbitaalka Fairview aan ku dhashay tusaale ahaan buu ku leeyahay laakiin qofka ku soo galay qaxooti muddana uu joogo uusan xasuusnayn ama waraaqihii ama waad ka garan kartaa waddanka markii la imaanayo degdega iyo runtii orodka dadka ku jira laakiin aan isdhehaynin hadda su'aalahana imaan doona marka su'aalahaasi hadda yimid runtii walwal kale hor leh ayay ku abuuraysaa jaaliyadda ugu dambeyntii Libano ilaa iyo maalintii la dilay gabadhaasi Renee isla habeenkeediiba mudaharaadyadu waa ay bilowdeen oo goobtii lagu dilay marka waxaan arkaynay dad fara badan oo Soomaali ah oo ama sambuus ama biyo ama shaax kulul qaybinayo xitaa culimadu waa ay ka soo qayb galeen oo goobtii waa ay tageen oo waa ay ka hadleen bal waa doorka Soomaalidu ay ka qaadanayaan cadaalad u raadinta gabadhaasi iyo in ciidamada ICE ay ka baxaan gobolka Minnesota ilaa intay la eg tahay cilmi waa runta saad sheegtay jaaliyadda Soomaaliyeed tan iyo markii la dilay Renee runtii aad iyo aad ayay u soo baxeen una muujiyeen garab istaaga inay Renee ay hesho xaquuq
runtii dilkii loo geystayna ay ka xun yihiin weliba qaar waxay ii sheegeen in Renee loo dilay Soomaalida darteed ayay aaminsan yihiin aniga inay noo dadaalaysay aniga ayay noo dhimatay anaguna waxaan jecelnahay inay mataqaana sidii xaquuq caruurteeda ay ku heli lahayd aan u garab istaagno runtii jaaliyadu maqaayadihii kuwii iska lahaa dad badan oo jaaliyad maqaayad lahaa waxa ay keeneen raashin nooc walba aan kala go'ay lahayn miisas dhaadheer intay soo dhigteen halka lagu dilay gabadha Renee ayay waxay keeneen sambuusadii shaahi dadka taagan xataa ayagoo taagan baa loo geynaya ma aha sambuuska soo qaada ma aha qasab baa lagu siinayay halka waliba maalintii la dilay halkaas way tageen maalin kale jimcihii asarkii ayaa halka lagu dugtay halkaasna waa lagu aadamay waad maqrashay aadaanka salaada halkaas ayaa runtii iyadoo goobtii lagu dilay dadku ay taagan yihiin ayaa aadaan lagu sameeyay runtii jaaliyadu masaajidada culimada mar walba way ka hadashaa in la garab istaago ICE sidii wadanka ay uga bixi lahaayeen ay hal qof ay wada noqdaan dadku marka jaaliyadu runtii qayb libax ayay ka qaadanaysay GoFundMe loo sameynayay gabadha la dilay iyo caruurteedaba loo sameynayayna qayb weyn ay ka qaadanayeen sida ii sheegeen laakiin jaaliyadu cilmi ugu dambeyntii way soo baxeen intii sharciga haystay waxay dhaheen kori hoos ICE hadday rabto way ku qabanaysaa ama way ku daayinaysaa banaanka adoo dagaalamaya oo ordayo hal ugu qabto waa tahay Liban Hussein oo Liban Show loo yaqaano oo mudaharaadii maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay Minneapolis si weyn ula socday wariyaasha la socday oo si toos u soo gudbinayay kamid ahaa Liban waa kaaga mahad celinaya waraysi sidoo kale thank you